بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد waxaan halkan aad ugu mahadcelinayaa martida sharafta leh iyo dadkii soo qalbi qaabiyay xafladan quruxda badan. waxaan kaloo salaamayaa dhammaan odayaasha isimada, salaadiinta, aqoon-yahanada, culimada iyo dumarka. waxaan kaloo salaamayaa qaar ka mid ah ardadeydii oo gadaal fadhiyaan. waxaan runtii farxad aan goobi karin. arrintan aan caawa u fadhino aasaaska maamul goboleedka Shabeelle Jubba, arrintaas waxay ku imaatay waa barnaamij aad iyo aad macnaha muddo dheer laga soo shaqeynayo ahaa. la tashiyo badan baa la wada sameeyey dhammaan beelaha deegaanka waa gobolada Shabeellaha Hoose, Jubbada Dhexe iyo Jubbada Hoose. la tashiyo xagga telefoonka is aragtiyo ma aha kaliya dadka oo jooga North America ilaa wadankii iyo tuulooyinkii laga wada hadlayo. maanta technology meel kasta ay gaarin, telefoon baa lagu wada xiriiray. baahidaas ayaa keentay in oo arrintan la sameeyo. runtii bulshooyinka deegaanadaasi ma ahayn dad ku tartama macnaha maamul inay samaystaan iyo madax ay noqdaan. waa dad Soomaalinimada ku weyn. maalintii xornimada la qaatay ilaa maanta waxay raadinayeen Soomaali weyn bay raadinayeen. waxaa ka soo baxay aqoon-yahano badan, dhalinyaro badan, gaar ahaan dadkii u istaagay gobonnimadii Soomaaliya. SYL xisbigaasi dadkii aasaasay badankooda waxay ka soo baxeen goboladan ay ka soo baxeen. marka goboladaas runtii waa gobolada kheyraadka badan oo Soomaaliya. dadkeedina waxaa loogu yaqaanaa inay dadka soo dhaweeyaan. baahidii Soomaaliya meesha laga tirjiray meesha ay helay heer waxaa la gaaray wax soo saarka meesha in wadamada carabta xataa loo gudbiyo oo Soomaaliya for free oo siiso. saas bay jirtay sababtoo ah dhulkii beerihii way xoolo dhaqatana way ka buuxaan meesha, kalluumaysatina way jiraan, xirfado badanna way leeyihiin dadka. marka dadka deegaanka ka soo jeeda waa dad aad u samir badan. dhibaatooyinkii dhaceen oo dhan wax bay ku iloobeen Soomaalinimo. Soomaali bay raadinayeen, kama qayb qaadan dagaaladii. ilaa haddana laguma sheego in dagaaladii ka qayb galeen. meel kastoona ay u barakacaan nabad bay geynayeen meel kastoo ay tagaan. waxaan halkan mahadcelin oo balaaran ugu jeedinayaa dhammaan gobolada oo dadkan goboladan saddexdan gobol ka barakacay oo maalintii dagaal ka bilowday ilaa maanta u barakacay gobolada Bari, Mudug, Banaadir iyo dalka Kenya. aad baan ugu mahadcelinaa dadkaas oo soo dhaweeyeen oo ilaa haddana gacanta ku hayaan. waxaan taxaysanaynaa intii horena waa u sabarteen, haddana u samr ilaa ay macnaha nabadda oo rasmiga ka imaanayso. dadkaas adiga lageyntii ku jiraan. bulshooyinka macnaha oo degan goboladan
weligood kuma degdegin inay maamul goboleed ay samaysan sida gobolada oo kale ilaa maanta waxay sugayeen in Soomaaliyeed soo noqoto laakiin hadda waxay u sameeyeen markay arkeen xalka kaliya lagu gaari karo nabadda inay tahay maamul goboleedkaas taas oo macnaha arrintaas dad aqoon-yahan badanna way ku jiraan oo meel kastana ay maanta ay ka muuqdaan hadday diaspora ah haddii oo macnaha gudaha ay joogaan ayagana waxaa laga codsanayaa aqoon-yahanada inay ka qayb galaan horumarinta dhulkaas gaar ahaan dhanka waxbarashada beeraha iyo dadkii inay helaan biyo nadiif waxaad arkaysaa labadii webi oo barwaaqada badnaa Soomaaliya meeshay marayaan dadkeeda haddana macnaha biyo nadiif ma haystaan marka aqoon-yahanka ayaa laga sugayaa dowlad kaliya inay sugaan maaha marka aqoon-yahanka u dhashay wadamada dalalkaas macnaha goboladaas waxaan ka codsanayaa hadduu joogo dibadda hadduu oo gudaha ku jiro inay arrintaas u istaagaan aan isku garabsano dadkaas loo samata bixi lahaa oo horumar joogtana la gaarsiin lahaa oo waara haddii Ilaahay karaale noqdo waxaan kale rabaa inaan halkan ka sheego in oo maamulka Shabeelle Juba State inuu ka tirsan yahay ama inuu ka mid yahay Jamhuuriyadda Soomaaliya maamul kaliis isu istaaga ma oo dawladda ka madax banaana dawladdu ka tirsan yahay kaliya maamul goboleed oo horumarin oo dadkiisu sameeynaayo wuxuuna aad iyo aad u tixgelinayaa dhammaan sharciyada dawladda iska leh gaar ahaan dawladda ku meel gaarka waxaana macnaha aan raacsanahay in oo si loogu talgaliyo loo fuliyo road mapka shirarka isdaba jooga meel kasta lagu qabtay arrimahaas oo dhan wuu taageerayaa waxaa kaleete aan rajaynayaa iskaashi oo aad u furan inaan la dhex maro dhammaan maamulada kale naga horeeyeen oo Soomaaliya oo laga sameeyay maamulada gobolada hadduu bari ahaa iyo hadduu gobolada dhexe iyo gobolada koonfur kulli waxaan rajaynayaa in nabad naga wada dhexeyso oo isla shaqeyno oo nabadiina aan ku dadaalno horumar waxaa ka horeeya nabadaasi ayaan rabnaa inaan qolo walba kala shaqeyno horena waxaan u helay dad nabadda jecel nabadba ku nooleen haddana waxaan rabnaa inaan nabadda walaalahayna kaleete oo dhinacyadayna degan inaan kula noolaano marka gaar ahaan maamulka iyo madaxdiisii oo maanta halka ay la fadhiyaan qaar gadaasheeda ay fadhiyaan qaar dadweyne ku dhex jiraan waa dadkii soo abaabulay badankoodna aqoon-yahan waayo marka ayagana waxay ballan qaadeen dadka inay kula shaqeeyaan waxbarasho inay wada siiyo midnimo nabad horumar waarta kulligood macnaha arrintaas muwaafaq ay ku yihiin inay dadkaas kula dhaqmaan waxaan halkan kale oon ugu mahadcelinayaa dhammaan hay-adaha waxbarashada na siiyey gaar ahaan dadkii naga soo kaxeeyey xerooyinka qaxootiga oo waddamadooda na keeneen sida dowladda Mareykanka dowladaha oo Yurubta galbeed oo dadkeena u fidiyey taageero qaxootinimo ah inay waddankoodii ku noolaadaan dhalashana na siiyeen dadkaasna aad baan macnaha anigu mahadcelinayna waxaa kaloo mahad mudan hay-adda UNHCR ilaa maanta ay macnaha Soomaaliya dadkaas oo wada qaxayo oo baddaas ku dhimanayo oo meel kasta joogan ay u taagiin inay taageeraan ayagana waa mahadcelinaynaa mahaddoodana lama ilaawi karo waxaan ku soo gabagabeynayaa inaan ballan qaado intaan madaxweynahan ka ahay in aan horumariyo
dhulkan lee magacaabay waxaan ugu horeeyay barakacyaashiina dhulkooda ku soo celiya sababta barakacyaasha beeraleydii bay ahaayeen hadday ayaga ka maqan yihiin wax horumar haddaan gaarayna ma laha dadkii beerihii qoodan jireen ayaga waay horumarkii lagu noolaa ayaga waay meel kastoo jiraan waxaan ballan qaadayaa haddii ilaahay karaal noqdo idinkana ay garab siisaan inaan soo celino nin walba dhulkiisa lagu soo celiyo waxaa kaloo ballan qaadayaa in gobollada oo jaarka nahayna inaan nabad ku wada noolaano oon la tashano oo aan isweydiino war xaggeen u jeednaa oo horumarka Soomaaliya nabadeeda xaggeen ka raadinaa gacan aynaan gacanta iska qabana waa isla jirna ugu dambaystii waxaan halkan mahad balaaran ugu jeedinayaa dadkii soo qaban qaabiyay asal ahaan markii ugu horeysay about 2 years ago arrintan inay caawa meeshaan lagu fuliyo oo ah in la aasaaso gobolkan oo hadda la yiraahdo Shabeelle Jubba dadkaasna aad baan u mahad celinayaa hadday waddanka halkay joogaan iyo haddii ay tuulooyinkii waddanka ay wada joogaan meel kastoo joogaan aad baan ugu mahad celinayaa waxaa kale aan u mahad celinayaa dadkii xafladan quruxda badan soo qaban qaabiyey insha Allah dumarka ayaan aad ugu mahad celinayaa ka qayb qaateen raashin macaan baa halka yaala ay qabsan doonaan ayaga ajir Allah ka siiyo marka ugu dambaystii waxaan aqoon-yahanka mar kale ku celinayaa oo u dhashay goboladan inay nagarab qabtaan oo ummadaasi meesha ku baaba'san hadday ahaleed waxbarasho la'aantii inay ka shaafiyaan hadday macnaha cisbitaal la'aan baa jirta meesha inay cisbitaaladii la helaan biyo nadiif in la helaan demokrasi in la helaan dadka maanta oo adduunyada inaan macnaha aan la soo sasinaanaa dadkii today waxaan joognaa millenniumkii waxaad arkaysaa dadkii waxba ma haystaan marka aqoon-yahanka ayaa la garaa aqoon-yahankaas oo goboladaas u dhashay waxaan ka codsanayaa inay arrintan soo istaagaan ku midoobaan idinkana waa mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu